كنت وعن ونكسن إذ لهانتين بقى كل سورة وذا برنامج كينا موضوع دلانكا وكذا وطان مركلة channel كان كلنا يوتيوب دلان كورية تضبط بشيء عصب يا كم غشان شكل تضبط كنا واحد غيبتي ذي أفراد هاي سلامر كان غيبتي قدام بسيط هاي تحناها شيء كوي كوساب سنة بقرة السراد يديد ليدي بافي قيبه شيء كذا كهري هدي يكون عارفين وعد كذا وكرتا channel كان كلنا يوتيوب دلان كورية وحصدوا كلاس لجنال كذا وكرتا تحنيال بدن وكوساب سنة شيء كوي مسلسلها كوان كسو تبيني بقرة وقتي هرجري شيكده كسر واد غيبتي ذي أفراد وحنا يقول سابسنتهاي سيدنا برنامج كنا هرجعي سكوشك نبى بقرة السراد يدي ليل بافي وانا غيبتي أفراد اتحانهنا وحليل وقت هراء ووقت هراء ويبقرده كنا لنولل أين كنا لونيسي وكنقول ليستي قوميوين دجالك كل شيء أيه هذنا وحان مركلي الدجال كذا توجين قوميدي دجالك ودي السنة سين واحد دوني سيني كقوليستو بقرة سراد مركي كليد كقوليسين كري ويدينا واحد جوان كقادين ويرتو صاحب بدي ذكله سي دجالك يسجعلسو وجنقوليستو بقرة واحد وعيسى صاحب بدي واحد ويريسا سيو عويان مسحرده كله بقردين قاركود صوبرني كوانا برندونو دجالك كل شيء مركب عدسجيده وح مغشي هيلانا كدبنا وح مغشي فيغا ويدنا شيء كوين كسوس عدا كو برندون تان وهم مسحرة دجال كل جرتا بقرد ريان أو بقرد بده هوستي ده كنول شيء كذي ده ندوان عروري مغلي دونتان مركو سوغاري تاركاي صدر تيسينا أيال بدو قمية فيغا يهلنا وحيسوغي ماتين كوري waxay ka tashanayaan sidii ay dagaal weyn oo oodo ugu siibi lahaayeen ku qaadi lahaayeen boqortooyada ay ka taliso siraad sidoo kalena ay u gacan siin lahaayeen Lady Buffy iyo hablaheeda saddexda masxurada ayaa ku heshiiyay dagaal weyn oo isku kaashadaan markii ay dhagartooda maleegan kadibna qosol ayay ku dhufteen qasriga boqortooyadana waxa ay siraad ku qaadanaysaa nolosheeda waxay ahayd meel ay ku nooshahay waxay la nooleed marka laga tago boqorka laba jiir oo saaxiibo la ahaa sidoo kalena waxay had iyo jeer waqti ku qaadataa kala xulista iyo kala doorashada dharkeeda noocyada badan leh marar badanna intay qaado ay nolosheeda qoobka ciyaar kuma weelisaa boqorka iyo boqoradu waxay qoobka ciyaar kadib u soo bixeen banaanka waxyar kadib si ugu wada hadlaan qorshahooda maalinimo ayaa mar kaliya waxay dareemeen wax la yaab leh dhulka ayaa ku gariiray wada ruxmay markaasay baqdeen waxa sidoo kale dhulka ku soo dhacay labadii jiir ee la saaxiibada ahaa waxa uu timi shimbirtii duuleysay oo iyadoona ahayd mid la saaxiiba waxyaabo fara badan oo aysan arkayn ayay mar kaliya aragtay waxay ku tiri igu yeedh duulaagii fiicnaa laakiin fariin ayay qaaday shimbirto waxayna ku tuurtay badda gunteeda wayna isaga sii tagtay iyadoo quraarad ku jirta boqorkii iyo boqoraduna waxay la yaaban yihiin waxa dhacaya dhulka ayaa ku gariiray guryaha ayaa daatay markaliyana waxay arkeen qasrigoodii oo burburay qasrigii ayay burburiyeen waxaana burburinta ka dambeeya saddexda qumaye iskaashanaya Sena Vega iyo Helena dhulka ayay la simeen waxayna ku baabiyeen qasrigii boqortooy waxayna ka daawanayeen dhalooyin musixiro ay dhigteen sida qasrigu u baabaayo kadibna gulaha musixir ay gaareen ayay ku farxeen boqorkii iyo boqorada ayaa yaacay intay sii socdeenna roob ayaa ku soo daayay iyagoo argagaxsan geed weyn oo kan loosku ka baxa ah ayay hoos taageen si roobka uga galaan balse markay wax yar joogeen ayaa jiirkii arkay midho soo dhacay wuxuuna ku yidhi midhahani waxay calaamad u yihiin waxaan caawimo ka dalban karnaa duulaageennii fiicnaa kadibna waxay codsi u diratay duulaagii fiicnaa ee Liya Bell waxay ku tiri Liya Bell noo kaalay oo nacaawi
liyaabeel markaliya ay geedka ka soo hoos baxday waxayna u sheegtay waxa dhacay in qasrigeedii burburay waxay ruuxday calaamadeedii markaasay markiiba aragtay in geedka dushiisa ay saaran yihiin saddexdii musixiriin waxay ku tidhi waynan halkan isaga yaacnaa waxaana dushiina taagan musixiriintii iyaga ayaana dagaal weyn inagula jira bannaanka markay u soo baxeen ayaa markiiba waxa ay liyaabeel dagaal ku qaaday musixiriinta si ay qasrigooda dib ugu soo celiso la burburiyey ee boqorka iyo boqorada laga burburiyey balse waxay arkeen halkii qasrigoodu ka dhisnaa oo laga dhisay guri naxdin leh oo fool xun oo cabsi gelinaya wixii arko oo dhan xataa labadii jir ayaa baqday seena oo ah qomayada qayb ka ah dagaalka ayaa hadda ku faraxsan waxay samaysay helenana dagaalka qayb bay ka tahay sidoo kale Vega ayaa timi waxay isugu soo baxeen bannaanka si ay u burburiyaan siraad iyo duulaaga fiican ee liyaabeel oo inta badan caawisa way u fikireen cabaar kadibna waxay hadda go'aan ku gaadheen iyagoo qoslaya oo dhoola cadaynaya inay siraad burburiyaan waxay ku afuufeen signaalo baxayo oo dable laakiin waxa markasta dib u soo celinaysay liyaabeel oo adeegsanaysay baawarkeeda wanaagsan balse way ka awood badiyeen muddo markay wadiyay riixeen waxaana ay ku dhawaatay xilli ay xataa suuxdo dhulka ayay ku dhacday waxaana ka dhacday usheedii ay wadatay ee kula dagaalamaysay musixiriinta laakiin siraad ayaa markiiba booday waxayna ay qabsatay washii waxay heshay baawar iyo awood ka badan midkay soo afuufayeen musixiriintu waxayna siraad u babacdigtay saddexdii musixiriin markiiba waa ay baqdeen wayna gariireen seena oo uga awood darnayd ayaa dub u dhacday helena sidaasi leeg laakiin Vega ayaa mar kale dagaalkeeda xoojisay waxayna dhulka ka soo saartay biyo weyn inta cagaha dhulka la dhacday kuwaas oo qarqoomiyay khalkhal la geliyay boqorka iyo boqorada siraad ayaa mar kale cabsatay oo argagaxday kana baqatay awoodda ay adeegsanaysay xoogga leh Vega wayna u babacdhigi kari weyday biyihii ayaa dhan walba kaga yimi kuna dhawaadayna qorqoomiyaan iyagoo xaalkoodu sii baxayo ayaa mar kaliya waxaa soo baxay boqorka Baabule waa boqorka dhalay duulaaga wanaagsan ee liyaabeel waana aabaheen fariinteedii ay badda ku tuurtay shimbirtu ayuu helay wuxuuna mar kaliya burburiyey saddexdii musixiriin wuxuuna ka guulaystay musixiradihiisa soo kaashaday oo mar kaliya burburiyey Vega oo ugu dambeysay ayuu dhulka la simay biyihii ayuu iyada ku qarqiyay biyuhu ku qarqinayeen waxay gaadheen kuwii kale oo dhan dhammaantoodna way wada qarqoomeen markaas ayuu ku gubay kadibna hal meel ayuu isugu ururshay musixiriina waxay noqdeen kuwa calaamay biyihii ayaa lagu xidhay oo dhagax looga dhigay musixiradihii kadibna liyaabeel ayaa ku qufishay oo dusha kaga xidhay wayna ku dhalaalisay kadibna intay qaaday ayay saartay buur gunteed meel aysan weligood xataa ka soo degi karaynin markay ka soo degaanna aysan boqortooyada ka soo gaari kareen boqorka iyo boqoradu iyo boqorka Baabule caawiyeyna aad ayay ugu farxeen mar kale waxay siraad ka guulaysatay qumayooyinkiis kaashaday ee soo weeraray liyaabelna waxay timi qasrigii la burburiyey waxayna ku soo celisay sidii hore boqorka iyo boqorada siraad ayaa aad ugu farxay sidii uga guulaysteen qumayooyinkiis ku soo kaashaday waxayna halkii ka sii watay noloshoodii kalgacalku ku dheehnaa ee farxadda lahayd siraad waxay u mahadnaqday liyaabeel oo ah duulaan wanaagsan taasoo tan iyo bilowgii nolosheeda caawinaysay saddexdii qumaye ee lagu xidhay barafka laguna dulqufulayna abaalkooda ayaa helay oo xataa shimbiraha ayaa dusha kaga xaaraa muddo fara badan markay halkaa ku xayirnaayeen maalmo cadceedu soo baxday ayaa barafku dusha ka sii dhalaalayay kolba qayb ayaa da'aysay waxayna madaxa la soo kaceen iyagoo qalalan mar kale ayay isku dayayaan inay xataa sharkoodii soo abaabulaan laakiin hadda awoodoodu waa tu soo gabagaboobaysaa oo boqorada siraad iyana waxay ku biirtay labadii boqoradoodii hore ee ka guulaystay
hadhowtana waxay isku dayayaan mar kale inay dagaalkooda meelo kale ka bilaabaan qumayooyinku balse siraad iyo boqorkeedu waxay ka guulaysteen hadda dagaalkii waxayna siraad ku biirtay boqorada Ayaan iyo Roodati Dahabley oo labadooduba hore uga guulaystay qumayooyinkii soo weeraray sheekada boqorada siraadna halkaas ay caruuray ku dhamaatay sida sheekooyinkii hore dhan baad uga baratay in wanaagu ka guulaysto xumaha ayaad sheekadan uga baranaysaa in xaasidku jabo oo qofku wanaagsan markasta guulaysto sheekada boqorada siraad iyo inta ku soo dhaafayna toddobaadka soo xigana waxaan bilaabi doonaa oo aad maqli doontaan taxanaha sheekada boqorada Rayaan oo ah boqorad iyadu badda hoosteeda ku nool dagaalna kula jirta tan qumayada feega tan iyo kulintideena dambe waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo sheekooyinkan iyo kuwa ka sii horreeyba waxaad ka daawan kartaa channelkan YouTube ku leenahay ee Dhalaan Koriye